diyaarad khaas ayaa waxay soo caga dhigatay caasimada Faransa ee Paris taasi oo siday laacibka weyn ee reer Brazil Neymar da Silva oo si sax ah ugu biiray kooxda PSG oo waayahan raadinaysay. laacibkan ayaa noqonaya laacibka ugu qaalisan dunida ee kala gataan laba koox wuxuuna ku fadhiyaa adduun dhan 222 milyan oo euro. laacibkan da'da yar ayaa ka soo jeeda dalka Brazil waxaana qaadan doonaa mushaar ahaan asbuuci 515,000 oo euro. maruu shir jaraa'id qabanayay maanta asigoo ku sugan PSG garoonkeeda ayuu wuxuu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay inuu ka ag ciyaaro laacibiinta reer Brazil sida Daniel Alves ee kooxda PSG. madaxweynaha France Macron ayaa milkiilaha kooxda PSG Nasser Al Khalifa u sheegay inuu yahay Neymar laacib aan caadi ahayn marnaba. laacibkan ayaa wuxuu qaadan doonaa nambarka 10aad ee kooxda PSG xagaaga soo socda.